Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaarta sharafta badan ku soo dhawaada kanaalkeena la magac baxay Ogaansho Guud. Axmed waa wiil 22 sano jir ah. Maalmaha ka mid ah asagoo asxaabtiisa kubad la ciyaarayo ayuu dhacay, gacantana ka jabtay. Asxaabtiisa waxay u qaadeen gurigiisa, wayna ka soo noqdeen. Xanuunkii hayay wuxuu ahaa mid aad u daran oo aan loo dulqaadan karin. Markii uu isku dayay inuu gacanta dhaqaajiyo, wuxuu dareemayay xanuun, laakiin ilaa hadda muusan qaadan go'aan uu dhakhtar ku tago. Wuxuu isku dayay oo keliya inuu waqtiga iska rido si uu xanuunku u ilaawo. Mararka qaar wuxuu isticmaalayay daroogooyin si uu u miirtoorsoomo. Maalmo badan kadib, laakiin wax walba sidoodii ayay ahaayeen. Axmed weli wuxuu jiifay sariirtiisii, laakiin ilaa hadda waxba uma uusan samayn si uu u daaweeyo gacantiisa. Wiilkaasi cajiib buu ahaa soo ma aha. Maxaa keenay inuu daaweyn waayo gacantiisa? Muxuuse u caawin waayay naftiisa? Ha yaabin, sababtoo adiga laftirkaaga waxaa laga yaabaa inaad Axmed oo kale tahay. Miyaad ku faraxsan tahay noloshaada? Waxaad naftaada weydiisaa dhowr su'aalood oo fudud. Miyaad ku qanacsan tahay noloshaada? miyaanad u malaynaynin inaad u baahan tahay inaad horumariso dhinac ka mid ah dhinacyadaada nolosha, xiriirkaada bulsheed, minhadaada, shakhsiyadaada, dhaqaalahaaga iyo inta kaleba? Haddii lagu weydiiyo inaad qof faraxsan iyo in kale tahay, maxay jawaabtaadu noqon lahayd? Haddii aadan ku qanacsanayn 75%, maxaad sidaas ugu joogaysaa? Maxaad badanaa ugu gabataa in seexato, inaad telefishin fiirsato, ama daroogooyin isticmaasho? Maxaad iskugu dayaysaa inaad Axmed oo kale noqotid? wax isbedelaya ma jiraan ilaa aad ficil samayso. waa inaad ogaataa in nolosha isbedeleen ilaa aad isbedel samayso. waa inaad ogaataa in haddii aadan qaadin tilaabo aad ku caawinayso naftaada, ay dhibaatooyinka sii kordhi doonaan. ogow in dhibaatooyinkaada aad iska indhatirto ama aad ka baxsan tidhaahdo ay dib u dhigi doonto, isla markiiba ay sii badan doonto dhibaatooyinkaaga. taasna ay sababi doonto inaad mar dhow la tacaasho dhibaatooyinkaas oo aad u weynaaday. kuma lihi wax kasta hagaaji iminka, balse waxaa ku leeyahay ficil samee. haddii aad camal la'aan ka cabanayso, maxaad u qaadi weyday ficil aad ku raadinayso shaqo? haddii aadan jecleen heerkaaga dhaqaalaha, maxaad iskugu dayi weyday inaad horumariso? haddii aadan jecleen shakhsiyadaada, maxaad u bedeli weyday? hadalka u dambeeya: ha daaban gacantaada oo jaban sida Axmed oo kale. hana rajayn inuu malag kuu yimaado oo kuu kabi doono. ha sugin inuu isbedel ka dhaco, balse adiga bilow isbedelka. ha eedayn nolosha. All my niggas shooters, all my niggas broke, all my niggas wildin', all my niggas violent, and they can't find me. That's Some cool, and they keep the normal killers. They come and kill you. Yeah, they're my niggas. They post for your tickets, and then forget.